أيها شرف سالم waxaan si gaar ah u horeeyo wasiirka caafimaadka waxaan leeyahay qodka ilaahay ha ku maamuuso ilaahayna ha ku san dhammaan madaxdayda meesha socotaba caafimaadka rijin naanu rabban ku qaadi jirnay dadka waxaana soo martay annaga inaan buurta muuqata ka soo qaadno rab naga soo qaadno oo ku geyna dhigo shay bay ahayd oo gaadiidka dhulka buursamayna awliyaa oo aan baraasi maanta ilaahay mahadti halkii rabbi dadkan kaga qaaday ayaan safarkii ka xarigtay shay waa mahad ilaahay inta ka beauty iska soo gabadhi inta ka waxaan ka hadlayaa inta kooban ee noo dhimanna in noogu dara iyaga inta kooban oo u horeyso ambalaastii santarka oo kow ah labo solarkii shilayay ee lagu shaqaynayay shaqa ku dhaqaaqay waa qodobka labaad iyadoo waxaa la yidhi waa laf iyo lud inaad lafta ka hadasho un baa fiican wixii ludana inaad dhaaftaa fiican qodobka saddexaad dheyrkii santarka qodobka afraad waa saddex afartaa qodob baa kusoo koobaya walaalahay oo kaalina iga ahaada afartaa qodob baa kusoo koobaya kolley oday hadalka oo hor socdaanahay horeybay ka baranaya hayla yaabina haddii aan ila dheeraato qodobka afraad adduunyadu waxaa la yidhi waa kun iyo kow kowdu waa biyaha kunkuna waa inta kow had meesha ayna biyo jirin buda ma jirtaa la yidhaha soomaalida yaa kuma baahda sidaa darteed biyahoo halbowlihii nafta ah oo galiil lagu ah oo inta dambe aan wallaahi meelo badan iyo naanu badan ku jirno afartaa qodob baan ka codsanayn inayna loogu soo daro wixii la karo hadalkayga intaasaan kusoo kobayaa wixaan ka tegay inta kalaa ku dari assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xagga hooyooyinka maadaama caafimaadku lafdhabar qofka hooyada xagga hooyo safiya wixii ay noogu dari kartee baahiya jira ay codsanayso ayaan iyadaa kusoo dhaweyn halkan ku guulaysan ma yaala meesha halkan ku guulaysan inaad keentid baan iga rabnaa walaalayaal idinkoo mahadsan idinkoo aad iyo aad mahadsan walaalayaal inaad noo soo dhageystirtid baan iga doonaynaa dee ambalaaskii sariirtii xoolkii adduunkii baa wada maqan yahay ya dawooyinkii wixii istabsaara laydiga rabaa walaalayaal sidaas dee noogu darateen ya inaad noogu dhamaystirtid baan iga rabnaa idinkoo mahadsan boqolkiiba boqol assalaamu calaykum عقيقة وثقافات حاج يوسف يقول لك المدن القومي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة كوبا إلهي ومحضر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلهي بأكل شكرنا إلهي بأكل نصورة قليل أو شمعتنا حينو وكو أمرين عدي صنعيسي عدي قبطي عدي وحكا قبطي وحوال بأمر إلهي بأكل حي مركا وإنا إلهي ومحضر طويل إلهي بأمحضر وإنا نكو شكرنا وإيه وهي إلهي وحيدي هذا نمعد النسيو وكل شكران لئن شكرتم لأزيدنكم قول إلهي هذا نمعد النسيو وكل شكرين والنسيانين هذا تخفوا رضانا عذاب المدين مركا كوبات إلهي ومحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مركا اللبات وحانو مهرينينا إذا الله عدي هولك الشيء إسبطال حنين ومدد الله دقح دقاد وبيدان ومعنتنا دماغي وإنت للا رفنيهم إذ الله عدي كهول كالشيء وحكا قيستي
هذه دولة دجان كهاي يا هذا يقبل كهاي يا هذا يدجمة كهاي يا عد كلام هذا كهاي يا رب ما نقين وايو جدا تكون مهنا في هاي ومن هذا أنت أقول لك كجزء وحن سلام يا مرحبا إلى أيام نشوف هنا أي كم كتاعي وسيط عافيماتك دولة دجانك دكتور موسى وسلام يا وحن كلام سلام يا ودومي هقولك إياه أنت كلا لا صوت مدح إنسان هير قولنا وسلام يا وحن كلام سلام يا مدح التكملة سيقولن حيبة وسلام يا وحن كلام سلام يا مدح الجار نوع إمتى ما أنت خلق النجار أي كشيء يلا يتحي تاريخ الكوبات مدح سماع العيني خلق أي كسر قال الشيء ده أمة خلق بتوك سكون وحكمك هاي فهي برسالة هو دجمة حريرة يو ما سيد على وسلام يا وحن سلام يا إذا كان يوكا وضياشة haweenka gebi waxa lagu xiriir joogto waxaan salaamayaa cid waliba nasabkiisa iyo halka uu mudan yahay iyo halka uu qalmo iyaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib ma badane waqti cadceeda weyn mahadna qaabay ku tahay waxaan leeyahay waa maalintii koobaad taariikhdu way qortaa dadka waxbay qortaa wayna dhaaftaa waa maalintii koobaad برسالة السيدة وهالكن خلق الجوجوي هي مدحني الدولة دجان هالك كفر مان وأرمي كهر يسولي وهذا ما يلوان هنا يلونا ما هي نو خلق الجوجي إنه يلوان ما ولي جينا ما يلوان إنه واحد قرأ إداري هذا كله برسالة عبد السعيد فاهية هي إبراهيم حسين خيره لوضع أفتياشي وي أنا أفتياشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إنت أيضا قويدة أنت أيضا قويدة وانكو فاني أنت وانكو فاني أنت قويدة تاي وحي مديهين وانكو سلامي وحويان وحلي هاي دردار انكي وضيبان دردار بيا وحلي دولة دقان هي قول كل الحمد لله وحي تاقين ضد قلت لكم فارين dadka ummadda u taagan yihiin waa nima dhalinyaro dadka u dabqanay weeyeen halka ka wada cusbitaalka wixii ka dhiman inaga in dul taala oo Muuse kooka iyo doctor kooka iyo aday ku dul taala sidii kale u dadaalay aday ku dalaalo oo dhamaystir waayo waa ay ku yaalo wadanka sameesho ku yaalo ay shacab wax ka soo iyo doctor iba jiro dhulka inta leh sidii aad ugu dadaashay waan ku ducaynay ku dadaalo هذا وجهي كذبا وصار دمه ذكر وحده ذكر دجاجة وحده ترى يا كدولة ذكر ترى ذكر واحد ولد إنه يسوي يوم مودو ترى يا كدولة ترى يا كدولة إنك عينتين وحي أتري كريسين وحي تاركين أتري كريسين لقرب جوك سدا أتري ينينا لها شكتك والله تبغى كيكوبان دكتور وحلا بدي مجنون دكتور كاكوكا نروش دكتور كاكوكا بيها كاكوكا دكتور كاكوكا وحويان ووح لقى مارمان إلهي بان ما تلقى كيري بلاك ماذا حلا هلقا ينوك انتنا وندو عينينا وذا دعي صفت في دلان دعا وين نغتقال دعا وين نغتقال وندو عينينا أنقنا وحن لنا هذا وحن قلوا كدريا ألقوا حريرة إنك حريرة يضيع ويسكو جوك سنتي وحن كدورنا مدح ما أنت عيدت هاي وذا جوكتو دول دقان حدايت هاي هي دقمويكي حدايت هاي هي لبادي برساب حدايت هاي وحن لنا يا شعب كدوي وحن لنا والمقالة حريرة حاسة وجه على وضعي محاولة لها وقبعي والرقيب الرقيدين وحن لنا تذكر هذا وقبعي والمقالة حريرة سيدي وين النقط إنه وين القرب قشين مدح وين القرب قشين dadka ganacsatada waynu halka wixii sakeeto meel door waynu noqoto laga shaqeeyo bal intay noo jirtay bal siday tahay eega maxaa u maqan macid baa u maqan maanta macid baa u maqan waxaan inagu dardaaraynaa walaalahayo
madaxdu waxbay fududaysaa iyo ganacsata maaha ganacsatadu magaalada ha magaalayso dadku magaalada ha magaaleeyo madaxduna hadow deegaanka iyo Soomaaliyeedba ha u fududayso dadka ha u fududayso intaa waan ku dardaarmaya wassalaamu calaykum سوق الورية زوج كل ووقت وقت قبلنا أسوأ الله يرضى وحن كيسو ورية كيسو دوي وزير هراء عبد المجيد إبراهيم ويا كانوا أفراد تاسلو كرام الله أفراد شو دوي هذا كيف هذا السلام شو دوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدحda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminaya wasiirka caafimaadka gudoomiyaha gobolka City iyo gudoomiyaha degmada Ishaca mas'uuliyiinta iyo marti sharafta la socota iyaga sigaan ayaan u salaamayaa waxaa kaloo aan salaamayaa ogaasha dhaqanka oo muuse hogaaminayo yaan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka Salel maayirka degmada Saylax xildhibaanada mas'uuliyiinta marti sharafta mid kasta magaciisa iyo martabadiisa iyo muunadiisa u leeyahay ayaan ku salaamayaa salaan kadib waxaan iyadna taatu lamid aan siinayaa shacabka faraha badan ee ku dhaqan qabalaha dayac ee dowlad deegaanka Soomaalida iyaguna cadceedda u taagan xariiqa jarka cusbitaalkoogan oo ay in muddaaba naawulayeen mudanayaal iyo madwey farxad weyn bay noo tahay inaynu maanta goobjoog u noqonno ama aanu wanqalkaygii joogno xaruntan caafimaad oo baahi weyn loo qabay oo dadka deegaanada ku nool bariga degmada Ishaca iyo gobolka Salel degmooyin fara badan iyo tuulooyin fara badan oo aad u ballaaran inaanay haynin xarun caafimaad balse maanta ay hayaan xaruntan farxad weyn bay noo tahay waana uga mahad celinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida si gaar ah wasiirka caafimaadka si gaar ah waxaan maqnaq gaarsiinayaa wasiirka caafimaadka iyo xukuumadda madaxweyne Cagta intaasi kadib xaruntani waxay ku taallaa goob istiraatiijiya degmada Xariirada ee gobolka Salel oo ah magaalada labaad ama xarunta labaad ee marka laga yimaado magaalada Xadboonama magaalada labaad ee ugu population-ka iyo dadka badan waxay noo jirtaa halkan marka la eego 1 kiiloomitir iyo badh sidaas daraadeed iyaga lafdalahaantoodu ma haystaan cusbitaal ku filan oo adeegooga fuliya farxadda maanta cusbitaalka la furaya kaliya hadda kuma eegana dadka reer Itoobiya ama dadka degmada Ishaca farxaddani waxay noqotay mid xuduudda ka tallowda oo dadka deegaanka maalmihii ugu dambeysay hadal hayntoodu wuxuu ahaa cusbitaalkaas sidaas daraadeed aad baan anaguna ugu faraxsanahay intaa marka laga tago qabalahan duruufihii soo maray iyo siduu ku asaasmay dad badan way ka dherigsan yihiin waa qabala aad u daayar haddana nasiib wanaag waxa waaye abiyihii waa helay waxbarashadiina waa leeyahay cusbitaalkiina waa leeyahay dadkani way nasiib badiyay wixii ka dhimanay dowladdoodii waa joogtaa wasiirkiina waa joogaa iyaga ayaa kala hadlay intaa marka laga tago annagu haddaanu nahay shacabka reer Salel ama reer Somaliland ee wadaagta tihiin cusbitaalkani aad baan ugu soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaanu halkan fariinayna aanu ka diraynaa anoo fursada ka faa'iideysanaya cusbitaalkan ama magaalada Dayac iyo magaalada Xariirad waxay isu jiraan wax ka yar 2 kiiloomitir goobtani aynu ilaahayna dhigay waa goob istiraatiijiya dhaqaale ahaan iyo isu socod ahaan ganacsatada gobolka City iyadoo wadagii ugu weynaaye xaaji muuse dhaqanku joogo deegaanada waxaan ka rajaynaynaa annagu haddaanu nahay dadkii degmada Xariirad ama gobolka Salel maadaama ay meesha tahay meel istiraatiijiya ganacsi ahaan aad ugu wanaagsan dheefi kartana ama loogu adeegi karana dadweynaha Itoobiya haddaanu nahay dadkii deegaanka annagu waxaanu bixinaynaa jogooyinkii idinkuna ganacsatada inaad fariinta naga gaarsiisaan oo idinkuna dadkiina keentaan oo ay hadday Dayac tahay iyo hadday Xariirad tahay sida magaalooyinka waaweyn ee xuduuduhu
أو شقيان أو شقيصو aad oo baasantiin ilaahayna waxa ka rajeynaya cusbitaalka maanta la dhagax daaha laga qaadayo ee xariga laga jarayo inuu noqdo mid bulshada u adeega oo sida ay dadku ugu dhiiradeen ay dadku u soo dhaweynayaan ee ay dadku ugu faraxsan yihiin gurihiisa rasuulkiisuna inuu mid wanaagsan noqdo oo dadka u adeego ayaan rajeynayaa dadku waxay joogaan cadceed hadalka badin maayo madal gaaban hadalkooduna gaaban ay dhammaantiin waa salaamatihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi hadda si aan hadalkooda loo dardaaran noqdo wax ka yaane asuuqa weeru soo dhaweeya wasaaraddiisa aan gaarsiiyo wasiirka caafimaadka walasaariyada gobolada salal iyo city gudoomiyaha degmada ishacaa haweenka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley waxaa gudoomiyihii degmada saylac ayaan ka tegey cafwan aad iyo aad baan u salaamaya kolley maanta waa farxad weyn waxaan nasiib u yeelanay inaan xarika jarka isbitaalkii magaalada dayac muddada dheer la dhisayey maanta aan u joogno xarika jarkiisii kolley waa maalin farxadeed hadal badan meesha ma yaallo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka soomaalida oo runtii ay wasiirka caafimaadku waxaan leenahay wasiir kolley muddo dheer baan sugaynay dhakhtarkan in loo furo deegaanka dayac annagu kolley dayac iyo xariirad isku nolol baan nahay waxa weeyaan wixii iyaga loo qabtay kolley shacabkeeduna kolley way ka faa'iidaysanayaan anigoo ku hadlaya afkii shacabka quruxda badan ee degmada xariirad waxaan aad iyo aad iga mahad celinaynaa isbitaalka quruxda badan ee aad maanta halkaa ka furteen kolley wixii ka dhimanna inaad ugu soo dartaan baa kolley meesha taalla dadweynaha reer dayacna kolley waxaan leeyahay isbitaalka aad arkaysaan kolley qarash fara badan baa ku baxay daryeelkiisa iyo dayactirkiisa dee dowladda laguma eege waashbaanuu leeyahay lama idhaahdee iyadoo dayacan qofkii arkaba inuu dhinaciisa ka qabta ayaa wanaagsan kolley cireeddu way kulushahay hadalkuna uu gaaban yahay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka sida hawsha quruxda badan lahay maanta u fuliyeen inay ugu soo dhammaystiraan shacabka reer dayac wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan samaynaynaa maadaama wasiirkii wanaagsan oo wax soo sheegay hadda waxaan kusoo dhaweynaynaa hadalkeeda duukan way dhammaatay gudoomiyaha gobolka city mudane ibraahim xuseen بسم الله الرحمن الرحيم ugu horreyn waxaan salaamay dr muuse axmed wasiirka caafimaadka dowladda soomaalida mudane cabdi saciid faahiye rasaabka gobolka salal mudane ciise rayaal xige gudoomiyaha degmada ciidad mudane maxamuud cigaal wacays gudoomiyaha degmada sayda mudane xasan jibriil dugsiye gudoomiyaha degmada shaciib muxtoonahay odayaasha dhaqanka ugu horey xaaji muuse migaag barre shacabweynaha degmada dayac golaha xildhibaanada degmooyinka saydac iyo xariirad guud ahaan marti sharafka awaladan ay ka socoto wadaagteena nagu salaamaya salaatu salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan kulli hadalka waa la fadhiyo waxaa sharafeynoo ah inaan maanta inteena ku kulanno xarigjarka xarunta caafimaadka dayac oo runtii aan aaminsannahay inay ku soo eegtay waqti iyo maalin fiican oo baahi weyn u qabtay bulshadu si loo helo adeeg caafimaad oo tayo leh isla markaana looga raysto safaradii badnaa baridii badnaa ee la tegayay xaruntan waxay adeeg sii doontaa dalkan bariga degmada Shabeelle
iyo guud ahaan gobolladan jaarka nahay adeegsi doonta waxaan u adeegi doontaa suuqiin u adeegaya marka odaha baan kala xidhay dadku waa mid wixii idinku haystaan waxaan hayno waxaan anoo keenana waxaan hayno taasi waxay keenaysaa wadajirkeena iyo midnimadeena sidoo kale waxaan manaanka siin doonaa inaan siino manaan ka duwan manaanaha kale maadaama uu tarkan ku yaalla meel xuduuda in markasta iyo goob kasti ugu dhammaystirna adeegiisu oo maanta aan awoodnay waxaa kana geed socodka inaan ku اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيدك عافاك نبيا طبعا ستي أعطيه موسى على الفروع دار فريا لما ما يتسيلع ما يتحرر ما يتشعر وضع ضع اللي معنا الدول مغنية مغنية وهنقول سلام يا نمان وياشي يوم ارتشرت في غير ضياع ما ترك الحفلة حركة تركة الأجور التركة صلاة الإسلام قدوم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاكن وصلنا واحد السلام علينا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وعقران السلام علينا مدعونا جمهورية الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يوم مدعونا كل كشرات مصدر مصطفى يا سيدنا السلام علينا وماسك أبيه السلام علينا سلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاكن وأيامها كم تراني ما توكل وعي سلطان مالي تاريخي أنا هو هاي سفر كوان أيام السعودية لمن السيل عبان كرمال كوشني أو ربضان أشقاء وعن الله كلنا الشري إن الله شيء موجود أكيد صباح يثير كلام ترى أنت يا ما أقول كلام يا بس أبتيجيس isbitaaladii waaweynaaye waxaa lagu xidhayaa Itoobiya oo dhan sidaa daraaddeed waa wax weyn oo inoo soo kordhay umuliso hadday hooyooyinka tahay hadday aabbayaasha tahay hadday carruurta tahay dhammaan waa wax inoo soo wada kordhay waan baarigaynaa waan soo dhawaynaynaa waan u ducaynaynaa wasiirka iyo halwadeennadiisaba iyo badha saafka waan u ducaynaynaa waxaan leenahay kaaba allah idinka intaa waxaan ku darayaa dadaalkii artayda ku daray waa run wasiir duciyeenkii baa sheegay walaalkay cabdimajiid ninkii ganacsadaa ee reer Itoobiya anagoo kala saarsaaray haddaan nahay reer Somaliland dhulkii waan siinaynaaye soo diyaargarobaan صعب waxaan ilaahay ka baryaynaa dowladda deegaanka walaalkii ilaahay ka rajayna inaga adeerka wahay sidoo kale iyaguna ay ka dhigaan dayax oo iyadana ganacsatada la siiyo dhulka si ay u dhistaan bakaaradii iyo guryihii iyo meheradihii ganacsiga ku xidhaya waxaan isku dayi doonaa wixii faasirse ee loo baahan yahay oo dhan in anaguna u fudaydino dhanka iyaga waan ku dadaalaynaa waana isku dayaynaa ganacsatada waxaan ku codsanaynaa waa inay maal gashadaan dhulkooda dadkooda horkacaan ganacsato badan abuuraan iyagu haddaan haleelay kuwa haleelayoo shaqaysanayaa jira dalcataha mahayaan
isku geeyaan ha abuuraan ganacsato cusub oo shaqaysanaysa ilaa intaasa ka baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم دوميها حسن جبريل دوسية دوميها عمايركا سنة سيدة وضني محمود حقان مايركا دقمدة أو مايركا أو المقالة حريرة وأنا سعيد ريالة عيسى ريالة لمان كابينيت كدقمدة إشعاع maamulkiisa oo isku duuban oday dhaqameedka uu ka horeeya adeero xaaji muuse aygaag barre iyo dhammaan oday dhaqameedka xildhibaanada mas-uuliyiintii hore ee ka socotay gobolka Sanaag hooyooyinka dhalinyarada waxgaradka dhammaantiin waxaan ku salaamay salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta way nooga duwan tahay maalmihii kale oo maalin farxadeed waxaan iskugu imanay laba magaalo oo magacyo mucjizaa wata magaaladii dayax iyo magaaladii xariira dayaxna magaceega wadataa waa magaalo dayaxeed xariirna magaceega wadataa waa magaalo xariireed labadaas magaalo oo mataano ah oo ilaahay uu noogna waafajiyey inay helaan xarun caafimaad oo dhammaystiran وهذه قسيم دوتا bulshada ku nool labada magaalo iyo nawaaxiga dadka kale ku nool ee reer Guraaga xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga barwaaqo waxaynu xoogga saaray dadii isbeddelka kadib in bulshada loo furo la dhageysto loo nugulaado laga xaqabtiro baahiyaha kala duwan ee arrimaha bulshada baahiyahaasi waxay taabanayaan kala duwan arrimaha bulshada ay ka mid yihiin adeega caafimaadka adeega waxbarashada adeega biyaha nadiifta wadooyinka isu socodka fudaydiya ganacsi xor ah xorriyatul qowl xor ah horumar waara siyaasad xasiloon iyo nabadgelyo dadka ay ku nasteen oo lagaga soo qaybay annagoo ka duulayna qorshayaasha hindisaha caafimaadka ee boolisigiisa ah ee dib loo habeeyey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي يا معلم إلهي يا معلم مدرسة قروح بدن تكون كلمات دمانتين بقى مثلا قبل كيسل نهاية تقبلي سيلة iyo gobolkii sidii hadaan ayba caafimaad iyo nabadgelyo keenayda marka hore mahadtaas kale marka xiga dhammaan in walba masaka halka ku joogo ayaa dhammaantii ku salaamaya shacab iyo dowladda intaa kadib hadal badan ma yaalo dadka xariirada iyo dayac waa dad kale haatay xarunta caafimaadka quruxda isbitaalkana ka wada faa'iideysan kara oo aan kala maarmayn mar walba sida la sheegay mustaqbalkana in dhan walba loo fududeeyo iyadana waa muhiim waan ka shaqayn doonaa insha Allah haddii ay yiraahdo wasiirka caafimaadka ee hogaaminaya qaybtan sitina aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dhakhtarka quruxda badan ee ay sameeyeen bulshadana waxaan leenahay waa inay ku faracadeygaan oo ay yadeeda yeeshaan oo ay dareemaan waxa iyagu leeyihiin inay waxaas wax dowladeeda yidhaahdaan oo ay aynan dayac tirin intaas baan wax dardaaran odhanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu